Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kulligiina kusoo dhawaada videogan yar aan rabo in aan idinla qaybsado tutorialkan. Marka waxaa waaye taleefanka hadda gelinayaa. Taleefanka ayaa gelinayaa USB. Ujeedin meeshan ku jiraa. So hadduu sidan kuu soo baxo way fiican tahay. Taleefanka waa kana kuma jiraan saa ujeedin. So software haystaa jirto. Haddii aan soo qabto hard drive-kayga inaan meelahan ku haystana way jirtaa. Inta kuma haysti. So intaan soo qabana hard drive-kayga gelina marka. Hard drive-kan waxaa waaye waxyaalaha qaar laakiin waxaa sugaa intuu hard drive-kayga soo qabanayo. Android recovery folder la dhahaa jiro marka ujeedin Android recovery kumahay meeshan waa kana marka software-adan dhan lagu furaa laakiin mid ku shaqeynayso kulli waxaa waaye waa copy gareynaa taleefankii xirnaa sidaanu kugu soo qoraa ma ogtahay waa ku shubanaysaa haddaa rabtidna SSD yaa ku shubani kartaa SD aa dhihi lahaa memory card-ka ku shubani kartaa hadda anaga copy aa ku dhahan laakiin taleefanka ma shaqeynayo waa idin tusinayna. So inaa waxaa rabaa meel kasta aa ila socodsiinaa rabaa. Haddeertaa maxaa sameynay faylashiyaa soo copy gareeyay waxaa ku shubay taleefankiyaa ku shubay. Faylashan haddaa u baahan tihiin haliisoo sheego send space iyo waxa idin soo gelinaa meelahaas idin soo gelinaa. Marka sidaa ujeedin software-kan waa la isticmaalaa laakiin wuxuu igu shaqeynaya aniga 7 uu igu shaqeynaya. Taleefankan waxaa waaye waa Prime-ka taleefanada kuwa yaryar inuu isku shaqeynaa laga yaabaa. Asagana video waa ka sameeyay waxaa ku arki kartiin Facebook-kayga timeline-kayga haddaa tagtiin waad arkaysiin. Marka waa si raqiis ah oo taleefanka gudihiisa ku geli kartid. Anaga hadda waxaa rabnaa taleefanka gudihiisa sidaa ku geli lahayn aa ka talinoonaa. Taleefanka gudihiisa saa ku geli lahayn aa ka talinoonaa. Marka software-kan u baahan tihiin Side Sense la dhaho waxaa kasoo download gareysan kartiin Samsung. Waxaa kasoo download gareysan kartiin website-keeda halkaas kasoo download gareystay. Marka koowaad mararka qaar waxaa laga rabaa in Wi-Fi oo iskula xiran yihiin the same Wi-Fi iskula xiran yihiin taleefanada. Marka mararka qaar markuu soo qabanayo waxaa laga rabaa inaad driverska computerkaada aa update gareysid inuu pop up sameeyaa la rabaa oo hal mar flashing uu sameeyaa la rabaa taleefanka. Marka waan gelinayaa soo qoray. So network failure network-giga xiray network ma lahan marka detecting uu ku hayaa waa inaa xiraa marka xir halii dul qaato waa inaa xiraa iska ignore gareynayna waxaan maanta dhan xiri karnay. So marka waa aragtay taleefanka halkaa markaa soo geysatid aad driverskaada update gareysid waxaa kula talin lahaa inaad isticmaashid software-kan waa free laakiin waxna way ku update gareynaysaa inaad isticmaashid. Marka waxaa kula talin lahaa marka waxaas dhan soo sameysid inta imaadid taleefanka markasto waa ka bixi waa record gareynaa screen-kan waa record gareynayaa taleefankan waa record gareynaa saa idin tusiyo waxa dhacayo waa record gareynaa kaamiradeeda la soo baxaya waxyar halii dul qaato taleefanka sidaa ujeedin halkaana marwanaa. So waa kaasa haddaa ujeedin haddii aan geliyo sidaa ujeedin waa kana taleefankii wuu damay. Haddii aan geliyo waxa soo baxayo fiiriya waxa soo boodayo soo ma ujeedin screen-ka waxa soo boodayo waxaa taabaneynaa kana taabaneynaa waa galna soo ma ujeedin gudaha
waxaa nagu qaadanaysaa haddaa keligaa tahay waxaa lagaa rabaa inay kugu qaadato 5 daqiiqo ka yar inaad taleefankaada furtid. So SideSigns ay ku keenaysaa soo download gareeya laakiin aniga SideSigns ma rabno. Waxaa dhahaynaa ES File Explorer. Waa kaasaa uu keeno waa ujeediin. So in waxaa lagaa rabaa aad taabatid midkan kore taabo kadib install garee. Account uu ku weydiina account samayso. Account an inaa haysto waa laga yaabaa inaa samaystaan waa la create aa mid cusub iska samaysana. So videogan waxaa ku duubayaa iPhone marka waa jarjaran yahay waxaa rajeynaa inuu idin caawiyo hana lii dul qaato marka accountiga aa sameynaa kadibna waa idinku soo laabanaa. Gaaray account cusub aa sameynayay agree aa dhahnaa arkaynaa kadib wixii soo baxo verify your account laakiin waxyar u qaadanaa kadib waa kana soo degnay laakiin close aa dhahnaa confirm ku dhahaa bis waa marka hadda waa install gareyni karnaa. Install gareynayna sida ujeedid waa kana taleefanka ku dhex jirnaa gudihiisa sida ujeediin open aa dhahnaa waa furnay taleefankii gudihiisa waa galnay sida ujeediin downloadska inaa ku ridayo softwareda downloadska ku ridayo waa kuwana midkan koowaad aa install gareynayna. So settings ka hadda tagno sida ujeediin source waxaa dhahnaa okay install aa dhahnaa open hadda dhahno maxaa dhacayo yes meesha aragno waa kana haddeertaan browse inaan dhahnaa okay. So meeshaan saa ujeediin gmailkiga gelinaa gmailki waan geliyey marka uu ka baxay. So gadaala u laabanayna marka gmailkaaga markaa gelisid waa inta joogtaa. So gadaala u laabanayna kulli gadaala u laabanayna gadaal noo celi taleefanka waa furanay intaa kusoo laabanayna marka fiiriyaa wuxuu dhihi doono waxyar kadib account added u dhahaa next account added haddaa dhahdid next aa dhehaysaa wixii aa gelgelinaysaa taleefankaadi waa kaasoo kuu furmaba. Halkaas ayuu ku ekaa videoga yaraa arabay inaan ila sheegarayo akhyaarta kulligiina waa idin salaama. Marka waxaa rabaa videogan in aad la sheegaraysaan saaxiibadiina iyo family akhyaartiina kale. Marka waxaa rabaa inaad subscribe iyo like dhahdaan pagekan oo YouTube-ka aan ku leeyahay PC House. Kusoo dhawaada kulligiina qofkii rabo message wuu isoo diri karaa wax kastana waa ila wadaagi kartiin. Waa mahadsantihiin kulligiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.